الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وجوابي سؤاله إنه سؤال waxa soo qoray Shukri Xaashiyo ka soo qortay Minneapolis Mareykanka. waxa ay leedahay sideebu ku yimi xadiis al-Qudsi sideebu ku yimi xadiis al-Qudsi daliilka la yiraahdo waxa uu ku yimi sida uu ku yimi xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo markuu nabigu shay sheegayo ummadana gaarsiinaya waa saddex midun quraanka kariimka iyo xadiisul qudsiga iyo xadiisiis marka erayada quraanka ilaahay baa iska leh oo rabbi baa subhanahu wa ta'ala nabiga uu waxyoodo ku soo dajiyay marka xadiisul qudsiga wuxuu quraanku kaga duwan yahay waa mucjis lafdigiisu waa mucjis oo cid lama iman karto waa mutacabbad bitilawati akhrintiisa lagu cibaadeysanaya salaadiina waa lagu tukanaya laakiin xadiisul qudsigu inta midna ma leh xadiisul qudsigu waa wahyi uu nabigu ilaahay kaga warinaya laba siiqo midu qaala allah ta'ala ilaahay baa yidhi inuu nabigu yiraahdo in fi ma yarwihi an rabbi rasuulku wuxuu yidhi isagoo ilaahay ka warinaya labadaas siiqo mid buu ku yimaadaa marka waa shayga ka yara duwan xadiidka nabiga quraankana aan ahayn laakiin saddexduba waa wahyi kalaamka rasuulku waa wahyi xadiisul qudsigina waa wahyi quraankiina waa wahyi quraankana marka dheeraadkaasi leh su'aasha kala waxa soo qoray ninka la yiraahdo Muuse Sheekh Warsame waxa uu leeyahay 35 sano ilaa intaan gaarayay sunna iyo faral toona lama iman soon iyo salaad iyo cibaado iyo amal toona hogaankaygu iska furnaa horaan u socday laakiin 35 jir markaan gaaray waan baraarugay waan toobad keenay maxaan ka yeelaa waajibaadkii hore maxaan ka yeelaa waajibaadka waxaad ka yeelaysaa dawad soo qalaynaysa fadaynu allahi ahqqu an yuqda rasuulkeenu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam markuu soom ka waramay deynta ilaahay baa ku haboon in la bixiyo soomkii salaadii soo qaleen halkaad sunnayaal ka tukan lahayd qallaha sunnad inta aad isleedahay waad dhamaystiraysaa wixii lagugu lahaa Cabdiraxmaan Sweden buu ka soo qoray waxa uu leeyahay dhul baan ayaan lahaa oo iibsaday dhulkii isaga ahaa ma garanayo meel uu ku yaalo qiimihiisina ma garanayo masaka igaga waajibaysa kol hadaanu milkigaagaba ku jiro ila shayga marka la sakaynayo waa inuu milkigaaga ku jiraa oo adigu aad leedahay oo aad gacanta ku hayso maamulan karayso laakiin mar hadduu adiga iyo cid kale idin dhex maray maalintaad soo hesho baad sakayn doonta dhulka waad baadi dooniyo kolka aad soo hesho ayaad sakayn doontaa laakiin waa haddii aad baac mushtari iyo iib ugu tala gashay haddaad dhulka ugu tala gashay inaad maalgashi ku samayso ama warshado ama aad ugu tala gashay inaad guri ka dhisato waxba saka male hadduu kaa maqan yahay hadduu joogaba laakiin dhulkii ganacsiga aad ugu tala gashay iyo iibka markaad soo hesho waad ka bixin doontaa sakada iyo waajibka lagu leeyahay insha Allah. Bashiir Maxamuud wuxuu isaguna soo qoray su'aalo jigjigu ka soo qoray waxa uu leeyahay neef baan gowraco dhiig baa iga soo gaaray dhiigii neefka ka daadanayay ayaa igu soo duulduulay salaadiina waan tukaday miyaan soo celinayaa mise saasaan ayaan ayaga ansaxday jawaabtu waxa weeyaan dhiigu hadduu yahay dhiig la arki karayo oo xoogaaya oo tiix dhaafsan qadarkii yara la cafiyay ee kanaacada raadkeedii wixii la mid ahaa hadduu dhaafsan yahay waa nijaas sidaa daraadeed salaadii waa inaad soo celisa dhiiguna waxa uu ka mid yahay nijaasooyinka la iska maydhayo ee la doonayo inaad nadiif ka ahaato markaad tukanayso maradaada iyo jirkaaga iyo meeshaad ku tukanayso
intuba waa inaanay nijaas lahayn. nijaasooyinkiina waxaa ka mid a saxaradii iyo kaadidii iyo dhiiggii. rasuulkana sala allahu calayhi wasalam gabadhii dhabar furanku ku dhacay wuxuu lahaa dhiigga iska maydho kadibna weysaysoo tuko. iska maydh wuxuu u odhanayaa nijaas inuu yahay daraaddeed. marka haddii aada hubto dhiigga jidhkaaga inuu ahaa dhiig qadarkiisu badan yaho wixii yaraa la cafiye basiidka aan ahayn, waad iska maydhi, salaadiina waad soo celin. axmed baa soo qoray, hargeysu ka soo qoray. waxau leeyay labadeedii waalid way dhinteen, waxaan doonayaa inaan xaj ka bixiyo ama aan ka xajo, keebaan horreysiinayaa? jawaabtu waxa weeye kaad doontaad horreysiin kartaa. labaduba xaq bay kugu leeyihiin, waa labadii aad ka soo jeedeed ka farcantay. haddaad u wada helayso, midna adaa ka xaji kara, midna qof kalaad u diri kartaa, markaasaad sanad walba ka xajiyi kartaa. haddii aanad u wada helayna, kaad doontaad horreysiin kartaa. su-aasha kale waxay noo soo qoray ninka la yidhaahdo aan idhaahda waxa soo qoray nuur baa soo qoray. wuxuu ina weydiinayaa bahashan hagbadda la yidhaahdo iyo xukunkeeda. hagbadda waynu garanaynaa, ayuutana waa la yidhaha waxaan la isku dardaraya ee kadibna dadku kolba qof qaadanayo. jawaabteedu waxa wey culimada islaamka khilaaf waa jira, laakiin qaybaa banaynaya. mar haddii qaybo ay baneeyeen culimada casriga, waa la iska isticmaali karaa oo kolba qof baa la siin karaa. waa nooc tacaawuna oo iskaashiyahu, markaasi ummaddu ay uga faa'iidaystaan waa la isticmaali karaa. qowlkaasaynu qaadanaynaa. su-aasha saddexaad waxaa le ikraan hargeysa ka soo qortay. waxay leedahay dumarku markay meel isugu yimaadaan doonaanna salaadii inay tukadaan, ma jamac bay ku tukanayaan mise furaada keli? jawaabtu waxa weye jamac bay ku tukanayaan, oo jamaca siduu raggu uga faa'iidaysanayo dumarkuna way uga faa'iidaysanayaan. waxay ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku marka ay tukanayaan. imaamka dumarku gabadha tukinaysa xaggaa hore uma baxayso, laakiin safka hore dhexdiisa istaagi. safka hore ayay dhexdiisa istaagi doonta, iyadoo dabcan dee cidhibta la yar dhaafaysa si loo arka imaamnimadeeda kuwa ku xiga ay warkaan. intaasun mooyaane inta kale waa iskaga mid. adaanka iyo aqiimidana sida ragga kor uma qaadayaan. haddii ay adaamayaan ay aqiimayaan dee naftoodunbay maqashiinayaan, ma qaylinayaan. oo codkaa kor loo qaadayo raggu u qaadayo sidoodoo kale uma qaadayaan, iyagunbaa ismaqashiinaya. ilaa cid ay u yeedhayaan ma jirto. waxaanaynu rajaynaynaa inay helaan fadliguu nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam ee laga helayay jaamaca lagu tukanaya salaada ee 27 darajo ahaa. su-aashan waxa soo qoray isagana ninka la yidhaahdo Ismaaciil burcu ka soo qoray. waxa uu leeyahay qofka markay qooni ku dhacdo ma la xaqi karaa iyadoo weli aanu bogsanin nabarkii? jawaabtu waxa weeye ma lama xaqi karo. qoontan gaadhay ama nabarkan ku dhacay ha bogsado. sidaasaanu nabigu faray sallallahu calayhi wasallam ninkii u yimid oo ha soo bogsado. haddii aanu nabarku bogsano la xaqo, waxa laga yaabaa qofkii dhibku gaadhay in dhibaato ka weyn imaka ay soo baxdo oo hadhowtana la diido la yidhaahdo waa tii aanu xaqnay. marka bacda alindimaali wa bacda albur bay yidhahdaan fuqahadu. markay qoontaasi bogsato unbaa la xaqi karaya. su-aashan kale waxa isagu soo qoray ninka la yidhaha Suhayb burcu ka soo qoray. wuxuu leeyahay qofka ilaahay caaya rasuulka, waalidka, asxaabta magaaloobaya. qofku haddii uu caayo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkana caayo
waa ku gaaloobaya xaaska ka furmaysa murtad buu noqonayaa inuu ka toobad keeno si degdega uga toobad keenana waa waajib hal kale ma jiro dadka kale hadduu caayana iyadana waa inuu ka toobad keeno gef weyn buu ku dhacay iyo xadgudub su-aashan waxaa soo qoray cabdiraxmaan norway buu ka soo qoray waxa uu leeyahy taxi ribo lagu qaatay baan ku shaqeeyaa ka waran waad iska dayin wax faraj wanaagsanna allaha ku siiyo kol haddii shayga xaaraan lagu qaado ribaa laga iibiyey khamri baa laga iibiyey tuugaa laga iibiyey الأيدي المتراتبة من يد الغاسب فهي غاسبة بين فقهاء كعنت حاران تكسي فرعنت ينا وحاران أما واحد كذبون قف باوح صور دعي ككسي دعينا ككسي قاطي أما هسي أما كيف سدو وقف سجنا واحد دعيهم سداد درادد حارانت الحرام حرام على الجميع dadka wixii aan cudurdaar ay loo dhan xaaraantu waa ka baxsanta waa ka hadhanta iskaga hadh faraj khayr qabana ilaahay weydiiso muuna soo qortay muuna maxamed su-aashan hargeysa ka soo qortay waxay leedahay xayeysiisyaa jira lagu dul garaacayo heeso iyo music iyo wax marka xayeysiisyada ma sii dayn karaa ma ku macaashi karaa maya haddii aad xayeysiinayso si fiican u xayeysii oo wixii la isku khilaafsay ama xaaraana ka dah muuqaalka xun iyo codka xun ka dah oo xayeysiis saafi oo nadiifa ayaad sii day doontaa wax sharcigu xaaraantinimeeyey aanu la soconin maxamed cali kiini uu ka soo qoray waxa uu leeyahay marka aan imaamka ku xidho ee aan kaga xidho ictidaalka ragcadaasi may tirsantay ictidaalku waa halkee waa rukuucda sara jooga ka dambeeya imaamkii baa rukuucdii ka soo toosay allahu akbar anigina waan ku xidhay ragcaddaa maxaa laga yeelaya salaadaasi way kuu xidhantay wey jawaabtu laakiin ragcaddaasi kuuma tirsanaa intaa aada la sii socotana ajri uun baad heli insha allah inaad dadka oo sujuudsan oo ataxiyaadsanaya kor taagnaataana sax maaha meeshuu imaamku kaga jira salaadaba waad kaga xidhan laakiin ragcaddii waxaa lagaaga tirinayaa markaad ugu timaado sara jooga ama isagoo si fiican u rukuucsan markaad ku gaadho labadaa wixii aan ahayn kuuma tirsana ragcaddu markaa iminka ragcaddii kuuma tirsana marka la soo kaco ayuunbaad tirsan doontaa insha allah cabdiraxmaan wuxuu ka soo qoray sweden waxa uu leeyahay marka aan masaxo labadii cagood isagu siduu u dhigayo markaan weysaysteen weysadii dhammaystiro duhurkii in casarkii ku tukado intaan anigoo aan masixina dee weyse qaba maqribkii ma ku tukan karaa mise waan masaxayaa jawaabtu waxa weeye qofku inta uu weyse qabo wuu ku tukanayaa salaada iyada ah ila weysadii hore uu ku tukanayaa oo isagoo daahira buu gashaday markayse weysadu ka jabto qaarka koruu maydhayaa sharabaadadii adkaana dushoodu masaxaya masxigii markaasaa kow looga odhanayaa weysadaa labaad markaa uu masaxee weysiista markaa inta uu deegaanka yahay ama reerkiisa joogo habeen iyo maalin ayuu xaq u leeyahay inay sharabaadadaasi ugu jiraan oo kolkay weysadu ka jabtaba uu masaxo qaarka sare markuu maydho hadduu musaafir yahayna 3 maalmood iyo 3 habeen ayuu kolkuu weyse jababa qaar kale intuu maydho halkana masaxayaa markay fursadu saasay u kala badan tahay waa ruqsad iyo fudayd sharcigu uu siiyey qofka muslimka ah oo habeen iyo maalina waa nagaadiga safarkuna waa 3 habeen iyo 3 maalmood mar walbana waqtiga la soo bilaabaya waa marka ay weysadu ka jabtay ee aad weysaysatay aad iyaga masaxday laakiin intii ka horeeyay weyse qabtay iyada laguma tirinayo su-aasha waxa soo qortay Maryam Ingiriiska ka soo qortay waxa la ninkayga 9 sanadood buu iga maqan yahay
markan u yeedhaba wuxuu dhaa shaqan wadaa fasakhaad ma ka qaadan karaabay leedahay. wallaahi waa arrin dhib ah. labadii qof ee ilaahay zawjaynka lagu tilmaamay, nisaa'ukum xarthun lakum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun. labadii qofe layidhi dhar bay isu yihiin oo isku asturan yihin, inay 9 sannadood kala maqayin iyagoo aan isna qabin isna furin dhibkeeday leedahay. marka in dhan la isula ciiro weeye ama xaas la noqdo, sidaa ilaahay uu sheegay fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan, in la kala tag wanaagsan iyo wada joog wanaagsan. marka isaga waxa waajib ku ah xaaska hadduu qabi karayo, ehel uu ka dhigan karayo inuu toobadkeenu u tago. haddii aanu xaas ka dhigan karaynin oo aanu diyaar ahayna inuu iska furo. laakiin qadiyadda fasakha in waxay noqonaysaa si fiican looga baaraandego, cid ehel u ah oo awood u leh inay wax fasakhdo ay u tagto, culimada halkaa jooga iyadoo la tashanaysa Soomaalida ah, kadibna isagii loo yeedho. haddii uu diidana wadooyinkii kale sharciga la maro. marka saas taana taladaasaynu raacin lahayn, laakiin qoyska in lagu ciyaaro maaha, xadgudubna uu noqdo, laakiin waa sharciga iyo xuquuqda la ilaaliyaa. allahu subxaanahu su-aalaheennii baynu sii wadnay. su-aashan waxaa soo qoray ninka maxamuud la yidhaahdo, hargeysuu ka soo qoray. waxa uu leeyahay salaada faralka ah adaanka loo adaamayaa ma waajibah? jawaabtu waxa weeye maya. adaanka gebigiisu waa sunne, oo haddii qofku uu ka tago salaadu way ansaxaysa. sunnaha macnaheedu maha waa la iskaga tegi karaa, oo sunnuhu waa ajriga cibaadada shayga badiya ama kaba. shaydaankuna waa waxa lagu eriyo shaydaanka, sida cadowga madaafiicda loogu eriyo kale. adaankiiyo aqiimiddaa erye buu nabigu yiri sala allahu calayhi wasalam, adbara shaydaanu walahu duraad. wuu baxsanayaa isagoo naqas dhowdhowle xagga dambe ka sii daynaya. marka adaanku waa sunne. waxaa soo qoray hana su-aashan waxay ka soo qortay Hargeysa. waxay leedahay haddii aan baanka ka qaato lacagtii muraabaxada oo uu gaari iigu iibiyo maalan ama alaabtii dib ma uga iibin karaa bakhaarkii uu baanku iga iibiyey ama macradkii gaariga uu iga iibiyey? jawaabtu waxa weeye maya. waa taxaayul, waa xeeladaysi, waa lacag ubaad qaadatay adigu dulsaar leh. marka alaabtaada la wareeg, meeshii kaleed ka iibinaysa ka iibi, si aanay u noqonin waxyaabihii uu nebigu diiday sida baycul ciina oo kale. waxaa la doonayaa qofkan iibkiisu inaanu mid suuriya noqonin ama macmala, laakiin waa inuu noqdaa iib xaqiiqi oo waxaan intood qaadato aada la wareegto suuqa kale la gal, oo si aanay wixii khiyaamo u noqonin. ilaahayna lagama hoos tuso subxaanahu wa tacaala. muuse ninka la ydhaa qardhuu ka soo qoray, wuxuu leeyahay nimanka gaalada ah ma lagaga dayan karaa dhar xidhashada? dharku wuu kala duwan yahay. midna dee way wadaagaan dadka muslimiinta iyo gaaladu, oo waa wax caam oo la yska wada xidho. midna khaas bay u leeyihiin, maalan fi lafraaxi waalaxsaan, waqtiyaday faraxsan yihiin iyo aroosyada, iyo waqtiyaday murugaysan yihiin sida marka laga dhinto kale. waxyaabaha had iyo jeer kaniisadda ka soo jeeday. marka waxyaabaha iyaga u gaarka ah ee aan caamka u ahayn caalamka lagagama dayanayo, laakiin wixii la wadaago dhib ma leh. qofka muslimkiina inta mar walba wuxuu ku dadaalayaa in uu shakhsiyadiisu ay noqoto mid mutamayiza ama mid gaar ah, oo aan cid daba socod iyo nacamlo ahayn, gaar u taagan buu isku dayaya. waayo isagay tay dee dawadii iyo diintii macaanayd buu xambaarsan yahay, iyo dadnimadii fiicnayd in lagu daydo wey. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu ka digay had iyo jeer waxyaabahaas in lagaga daydo. man tashabaha biqowmin fa huwa minhum. qofka qolo isku shabaha iyagu ka mid yahay. macnaha haddii niyadaadu ay tahay kaasaa qurux badan oo qiimo leh ee ku dayo, oo dhanxiirashadii dabadii surwaalku ka dhacaya oo adiga arkay dhallinyaradu halkay marayaan, arrimahaasuu nebigu ka digaya sala allahu calayhi wasalam, waana xaraam.
محمد نيكا لا غوداي بو كسو قوري waxa uu leeyahay hadii aan caruur u walqalayo saca ama neefka loodahay ma ku filaye 7 ciyaal hal mar in loo wada qalo jawaabtu waxa way ha البدنة والبقرة تكفي 7 و7 عرورة ولا قوة القلي كرا نيف كيلة أما نيف لقى ودي مذكرة طبعا و7 عريا بو دقما 7 عريا والله قلي كرا نيف كيلة والله قلي كرا أما نيف لقى وكف ليه قول كراج حيواكا وهي هلب كيدو بدنيها سيدو جيلة بدنيها وكلا سؤاشن kale waxa soo qortay Aamina Maxamed baran bay ka soo qortay waxay leedahay dadka qaar kood baan arkaa farta dhaqdhaqaajiya marka ataxiyaadka ah maxay noqonaysaa dib male farta waana la fidin karaa marka qofku ataxiyaadka u fadhiyo wala xadiis saxiix xoog badan isay ku soo aroortay illa dhaqdhaqaajiyana xadiis qaar kood baa ku soo arooray sida xadiiskii وائل oo kale oo wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam fiirsaday waxa uu yiri maanta bal sidoo nabigu u tukanayaa baan u fiirsanaya meelihii kale oo markuu ka soo sheekeeyay baa wuxuu yiri fartana nabigu waa dhaqdhaqaajinay markuu ataxiyaadka kaana yuharrikuha yad'u biha uu dhaqdhaqaajinay nabigu isaga oo ku ducaysanaya marka waxba dib male mar haday nabiga ka soo aroortay wala sameynaya sallallahu alayhi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli rasuulkeenu wuxuu leeyahay u tukada sida aragteen aniga oo u tukanayo kale Mustafa su'aashan hargeysa ka soo qoray waxa uu leeyahay waalidku wuxuu waqfay geel ayeeyday baa geel waqaftay laakiin dadkii qaraabada ahaa ay u dhiibtay sida adeerka oo kale ayaa wuxuu doonayaa mushqaayad inuu ka qaato hadii la dhaqayana mushqaayad uu ka qaato hadii la iibiyana tacab baa iga baxaysiya buu leeyahay حق مولي جوابته waxa way ha waqafka cid ku hawshoonaysa waxa way ka cuni kartaa sidii Umar ibn Khattab Allah ka raali noqday waqafkiisa uu kaga waramay waqafka asalkiisa meesha lagama saaro oo waqaf buu si ahaanaya uu tamarinaya wala dhaqaya laakiin wixii ka soo baxa dadka ku hawshoonaya wax way ka cuni karaan aduuya masaajidkii مدرستي عيالكي بيها اسكو ودا در قفك تعبك u taagani waqafku dayacmaya hadii aan la helin cid daryeesha cid daryeeshana hadaan ku tabarucayn wax doonayaan intii munaasabada xaq ay u leeyeen baa la siin doonaa su'aashan xayaat baa soo qortay adisaabay ka soo qortay waxay leedahay mararka qaar waxa dhacda gogosha roogagiya wixii la mid ah inay kaadida caruurtu ku daadato si loo nadiifinaya waxa loo nadiifinaya sida dharka kale loo nadiifiyo oo dhulka iyo ciidu si gaar ah loo nadiifiyaa biyuhu baa lagu badiyaa sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam masaajidka uu nadiifiyay markii ninkii reer miyiga ku kaajay laakiin masaajidku ciid buha biyo badan buu ku shubay laakiin marmarkii biyo la marin sibirkii biyo la marin doona roogii waa in biyaha lagu maydhaa waa nicmo Ilaahay uu nasiiyay macdanta biyuhu oo intaynu wax ku nadiifinaynaaba ka badanba intaynu isticmaalayno marka waa la nadiifiyaa ila lagu qancayo wasakhdi inay meesha ka baxday sidee loogu cibaadeysto oo marka qulunkiina meesha u dhaafo Sahra Masar bay ka soo qortay waxay leedahay waxa aan ballan qaaday laba qof oo la garanayo inaan siiyo dhar laakiin qadar alla labadii way dhinteen dharkii la diyaar baan ahay maxaan yeelaa jawaabtu waxa weeye ehelkoodii si mar hadaad ballan qaaday ballantii ha ka bixine in ballanta la fuliyaa waxa aad u wanaagsan wixii khayrna aad niyootay waxaad siin doontaa dhaxlayaashoodii iyo ehelkoodii haddii aad ehel aanay ka tegin ama aanad garanayninna dadka kale siiyo sadaqadii ay kaa joogsanin kala dad khayr niyeyso dib looma noqdo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ducadiisa waxay Allahumma inni a'uudhu bika min al-hawr ba'da al-kawr ilaahu intaan horumar sameeyay yaanan dib u noqon marka kala dad khayr doontay dib ha uga noqonine labada dariiqo mid uun ku bixi Abdulrahman Muqdisho ka soo qoray su'aashiisu waxa weeyaan dhowr jeer baan daartay oo kala duwan
manaan fulina maxaan yeelaa dhaartii macnaha way iga baaqatay hal kafaara gud baan bixinayaa mise mid walba kafaara gud gaara jawaabtu waxa weeye mid waliba kafaarooyin kala duwan bay leeyihiin inaad waxaa samayso ayaad ku dhaaratay wax wanaagsan buu ahaa manaad samayn haddana mar kale dhaaratay haddana mar saddexaad baad dhaaratay dee 3 jeer kafaara gudkii bixi idcaamu 10 masaakiin 10 miskiin waxsii haddii aanad helayninna 3 cisho soon saasaa kafaara gudka dhaartaasi uu noqonaya markeeda horebana dhaarta in afka laga ilaaliyo weeye oo aan lagu degdegin si bilaa macno ah sakariya barbaruu ka soo qoro wuxuu leeyahay kulliyadda qaanuunka ayaan ka baxay looyarnimo qaanuunna waan ku shaqeeyaa sax miyeed maya sax baaha qaanuun shareecada khilaafsan intood barato inaad ku shaqaysaa waxay keenaysaa inaad baadil ku socoto dadkaad u doodaysa waxa laga yaabo waxaanay lahayn inaad siiso ama wax lagu leeyahay aad weydaariso marka xuquuqda marka wax lagu helay xalaal noqonaysa marka sharciga la waafajiyo islaamka laakiin haddii aad qaanuunkii raacdo oo qaanuunkii qof wax aanu lahayn aad ugu soo goyso dee xaaraan baad sabab u noqotay baadil ama wax lagu leeyahay qofkan baad kaga difaacday idan marka qaanuunka qofkii dee wuxuu baran karaa si uu u ogaado wixii shareecada waafaqsan iyo wixii khilaafsan uga baydho laakiin haddii aad isagoo shareecadii khilaafsan aad ku shaqaynayso waa daalim baad noqonaysaa ilaahayna wuxuu walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman dadka wax khiyaamaynaya waxaanay lahayn qaadanaya ama wax lagu leeyahay iska duwaya ha u noqonin khasiim looyar ha u noqonin iyo garyaqaan ama qof dee afhayeen u ah marka mar walba qofka cid kale u doodaya waa inuu xaq ugu doodaa baadil inuu ugu doodana aayaddaasa ilaahay uu kaga digay subxaana wa tacaala ilaahay soo qortay xamda burcay ka soo qortay waxay leedahay marka aan weysaysto aan ku tukado 2 ragcadood oo sunno ah ma ku tukan karaa salaadii faralkayd weysada mise waa inaan faralkii u weysaystaa waxa baraarujin leh horta su'aalaha in la iskula yaabo maaha oo dee qofba aqoontu meel bay u taagan tahay waxa laga yaabaa wax adiga aad kula sahlan inuu qofkan ku adag yahay oo dee su'aasha qofku waxay ku salaysan tahay kolba cilmigiisu intuu leegin marka su'aashan odhanaysa anigoo weysaystay hal salaadoo sunna ma ku tukan karaa mise salaado kale aan ku dari karaa jawaabteedu waxa weeyaan salaado kale aad ku dari kartaa weysada aad ku tukatay sunne faral waad ku tukan iyo sunnayaal kaleba weysada aad ku tukatay faral sunnayaal kale waad ku tukan kartaa qofku 5 salaadood iyo ka badanba hal weyse uu ku tukan karaa wax ka jabiya hadaanu jirin inuu dib u weysaysto isagoo weyse qaba waa iska sunnawn Abdikariim Ameeriku ka soo qoray su'aashiisu waxa weeyaan miyay ii bannaan tahay inaan caymiska nafta galo iyadoonan gaadhin 67 sano markay intaynaan odhan haa iyo maya caymisku waa kee ma kii xalaasha ahaaba mise waa kii xaaraantaha caymiska ganacsiga waa xaaraan isagu laakiin caymiskan tacaawuniga ah ee iskaashiga ah isaga ayaa xalaala marka kaa xalaasha haddii aad u jeedo dee waqti kasta waa la geli karaa kaa xaaraanta ana maya lama geli karo xamse hargeysu ka soo qoray waxa uu leeyahay marka aan ku jira salaada miyaan ku ducaysan karaa af Soomaali su'aasha marka aynu ku soo dhawaano jawaabteeda waa mas'ala culimadu ay isku khilaafeen qofkii garanaya luqada carabiga iyo ducooyinka ma'thuurka ah ee nabiga laga soo gudbiyay sallallahu alayhi wasallam kuma ducaysan karayo laakiin qofka aan garanaynin ducooyinkii af carabiga ahaa inta uu baranayo waa ku ducaysan karaa bay qaarkood leeyihiin marka mar walba ducada af carabiga ah ee ma'thuurka nabiga laga soo gudbiyay sallallahu alayhi wasallam ayaa fadli badan
inuu qofku barto oo uu ku dadaalo. qiil waa jira u fasaxaya haddii aanu taa garanayn, laakiin waynu baran karnaa. oo waxaa laga yaabaa haddii lagu dhaaro horta interview safaaraddu kula yeelanaysa ama qoladii wax kaaga xidhnaayeen inaad caawa casharkaa aada usii qaybto. tanina waa waxaad ilaahay ku afgaranaysa subxaana wa tacaala. marka waan baranaynaa sideen faatixadii ataxiyaadkaba u baranayno. su-aashan waxa ina soo weydiiyey xamsi gabilay buu ka soo qoray. waxa uu leeyahay goormaa la akhrinayaa faatixada marka imaamku tukinayo? ba waxaa la akhrinayaa imaamku intaanu isagu akhriin faatixadiisa ka hor mise kadib? jawaabtu waxa weeyaan imaamka faatixadiisa dhageysanaysa hadduu salaada kor u qaadayo, salaadihii subaxa maqribkii cishaa'iga kor loo qaaday hadday faatixadiisa dhageyso. markuu dhammeeyo kadib ee qur-aanka kale uu akhriyayo, adigu faatixadaada akhri. markaad dhammaysana isaga dhageyso. lagamana dhaafayo qofka salaada tukanaya faradka ah noocay doonaysaba ha ahaatee faatixada. oo rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiid macnihiisu iyo salaadiguma jirto qofka aan faatixata alkitaab akhriyin. suuratu lfaatixa waa qur-aanka ay waajib tahay in la akhriyo salaada dhexdeeda. marka imaamku waqtiguu qur-aanka kala akhriyay adiguna si kooban u akhri kadibna dhageyso. yuusuf oo boon ka soo qoray waxa uu leeyahay ducadan istiftaaxa salaadaha sunnaha miyaa lagu akhriyaya mise waa faralka uun? ducaaul istiftaax waa ducadan lagu akhriyo markaad salaada gasho intaanad faatixada bilaabin. jawaabtu waxa weeye haa, sunnahana waa lagu akhriyayaa, faralkana waa lagu akhriyayaa. ducooyinkaa qaar koobanina way jiraan. markaa kolkaad sunnaha tukanayso kuwaa kooban baad u qaadanaysaa, lagama tegayo. oo inta badan salaadaha faralkii wixii ay leeyihin buu sunnuhuna leeyahay ilaa 30 shay oo lagu kala saaro mooyaane tiina kuma jirto tani. wallahu aclam.